Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laak sidaanay ilmuhu uga qosliyaan war antaan dudo haytan antaan jeedan boorsa tira badana ma intaan roora haytan jeedan war caawa garowe ka shidantahay hanugu mashquulin boowe caleema saarkii madaxweynaha Puntland 26 January waa maalintii madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo caasimadda Muqdisho ka baxay marka carar iyo caleema saar maxaa isku keenay war maalintii bye bye oo yirsoma war waa maalintii balaayo hoodi idin tiri oo dardaarankii madaxweynaha aad diideen oo xabadaha naga daayay beerihi nafasha u idin lahaa war waa maalintii abwaan abshir bacad la yiri Allah u naxariistee allahu yaa inoo diga markaan duqa ku yaacaynay kadibna uu yiri duqi doona ducana ugu dara waana dilateen baa uu yiri hoo darbuuxa xoolaawow duudan idina dulmiyaad waadeen darbuuxa xoolaawow duudan idina dulmiyaad waadeen haye war 26 January waxa la caleema saaray waa madaxweynaha Puntland Dani war garowe madaxda isku tagtay mucaarad iyo maxafadba waa loo digay waxa la yiri meesha waa caleema saar rag badan oo ciil isu qabaana way isugu imaanayaan wixii xagxagashaha waqtiga la ka dhigteen baago dadka ma tagaaya nin walba calooshiisa walax u gaar ah ka dhex guuxaaya war antii ololada ku fadhiya afkahi buko leeray afka musku furdaana may war meesha ku cadira ma Cabdi Shukuura tagay qodbadii oo soo diyaarsaday markii la joojiyana wuxuu yiri dan iyo wadaan kaashikii gabi ahaan taay gacan saar farmaajiyo waxbaan ku tuhmaynaaye aydan diyaarsaday ninkii joojiya tahay aryaadaha ma Axmed Madoobe tagay waliba ilaaladiisa la socota wuxuu na yiri aaga iscaleema saarkii ka weyn ee gasheekadu xulki ila dagaalaan arkiyo xaasidiin badane waa tii awowgay lagu gubaa inaanan yeelayn war wiliga ha yeelin nabad in hol waa ku sugaysaa war af Soomaaliga ma gordaasoo ninka ku dheelay fad ama hafadin waa lagu fadsin yaleere war madaxweyne xaf hadii madaxda kala diyaarada ku tageen isagoo suuq saaran ciidankiisa uu tagi yaa in la xiramiyo ka cabsaday adoogu udurkii caleema saarkii lafta garan usan gabaagadiya wili ku uqdadaysanya war adinka uqdadaysan naga dhageysta warka wuxuu yiri wiilashanu dalkii bay qaseen oo qalqaliyeen taladii qarbay kala dhaceen quusna waan nahay qaraab dibadda noogama ogola namana quudsha warnimaya war ma haysaane garowe waxa tagay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxaana lagu yaqaan mucaarad xilligiisa sugta ka horna aan waxba xagan wuxuuna yiri sheeg iyo xal lama rabo hadaan lees xushmaynayne isxagasho lagu gaari waa xir cadaalad ah xaakimkii la doortaa haboon inaan xaq dhowrnaahay waraan waxa loo yiri liwaad isqoon bisata u moodin warmaanbaayo ma ahane waa arqoy aqoon gaab dawac uleeka war madaxweynuhu hore Xasan Sheekh asna meesha waa tagay wuxuuna yiri hawl iga qabya haydan oo si dhameystiraya afisyoona nimankii codkii leega wada siiyay bilaash xaytayaal bay noqdeen gabi ahaantoodi maxay aniga dabaday tareen ha iska faaneen 28 sano kadib waa markii uu horeysay ee ay hana qaado dawladnimo rasmi ah war ma haysaane madaxweyne farmaajo waa waxa qodbadiisa la wada sugayo xafladan asaga soo gabagabeynayo isaguna wuxuu yiri dad waa kala aqaanaahe codkarnimo rag sheegtaa jiraan muranka daynayne siyaasigii xanaaqsanina waa naaf laga daynay waa in meesha laga joojiyaa hadaladoodii waraada maamul goboleedka kale waa sheegteen madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne waare urjifooyadii ku gowracan miya waysa meesha ka hadleen lafta gareen hadal wiilashib ma arna ma yaray inaga awjay ma ka baal hadalaa eebsheegna eebduwa corona ogaada waari waarana wuxuu yiri ilma yahu dawladnimo la'aanteed la loolaamaayee muruka laga deeyaha libaka la doortay war madaxweynaha la caleema saarayo Dani isagu muxuu yiri warnaya aamus wiil arooskiisa kama boode
warnaga ta goorma xishoodu dambeysay gabdha arooskoodii ka booday baba la arkay wiil maxaad ka sheegaysaa warnimo maanta garow waxaan ku arkay dhaqamo aan ku arki jiray shabaab iyo ahlu sunna wala calay masaarka may ka qayb galeen warka iga dhax gelinayso oo laba qurac oo kala joogay matabaan iyo beledweyne u dhaxaysa qolana quraca kontaroolka waxay saari jirtay tusbaxyada qolana waxay saari jirtay indha shareerada markaas waxa samaysmay laba qurac oo midna indha shareer la ciirayo midna tusbax hadda airboorka garoowe boor iyo calan aan la aqoon buu la ciiraya war naga tag shabaabku dadka tusbaxyada waa laqsii jireen aryaa waa kuwa soddonka kuwa dadka laqsii jireen kuwa kunka ma umadu dhunxi karta war tusbaxa ra'iisul wasaare Dr. Shaakir waa 2000 cid laq kartana ma jirto aryaa kaas biyo lagu liqaanba in la saaray warnimada waxaan la yaabay wadaadkii sheekheeyaw ahaa oo waxaan arkay maqaayad dadka badarka u geegeynayo marka cafi walaalka la isku ogaayay ma walaalka cunto u geeyo hadana keenay war muslimka waa u qidmeeya diintuna ka hela sheekhu war sheekhu waa isku sawiraye khidma kama ahayn yaa mayda ajir leeyahay taas haday ajir leedahay nabad iyo nolol ku barwaaqoobi lahayd nimayo saas ma aha shaqa sharaf shaxana abel yiri war ma haysana maanta ra'iisul wasaare khayre magaaladu dhex lugeynaya magaalada tiyaatarku yimid asagoo lugeynaya kadib maktabadu lugu tagay haddana madxafka qaranku lugu tagay arninku geesisanayay ma General Daawud Abdullah Xirsiba war honaba jirto rugni la sheegaw ra'iisul wasaaraha suuq hoolaha dhex lugeeyay waa kay madisaaqow waa shirqool taasiya ma kursigiisa danu ka haysa warnaba walaan ku farxaan maqla nimankii inta gabadha faraxumeeyay guriceel filinka ka duubay faafiyay waa la soo qabqabtaa leey dhamaantood laakiin qabasho kaliya xal ma ahane waxa xalku ku jira nimanka in la toogto lagana ilaalsho odayaal yiraahdo xal iyo xumaynaan kala qaadanay wariyaa dadku xaar buu leeyahay ma afarnin baa gabarnoo loo tooganaya ahey koofi subugla bariidka baad la gali maaha war maxkamadda Dr. Shaakir arintan waxay ka qabato ayaa lagu ogaanaya waxay tahay baago anigu wax kale la yaabaan maqlay Taliban iyo Mareykanka shiraa qadar uga furmaan la yiri wada hadal raayana u socdaan la yiri heshiisayna gaari rabaana la yiri aryaadaha anigu waa yaabanahe mini Taliban iyo Mareykan heshiinayaan shabaab inay ununka nala heshiiyaan ay ku diideen mase Mareykanka inuu la heshiiyo rabaan wadaayay warka eedan kasi mukulaal doolihi la heliiday waraan la yaaba maqlay amiir sacuudiyaan ayaa Masar sagoo qaahiro qamaar ka qayb galay 300 milyan ayaa 6 saacadood gudahood looga helay sagaal xaas oo uu qabana 5 ayaa laga helay waraa diinta reecaala sacuud sagaal naagood miyaa lagu qabaa mayano abow xariifkan haajidiis gaar waay waa adeegtay waayano war 9 naagood biilkoodu bixi waaye way iska kala yareynay ariya madaxweyne farmaajo shacab badana garowe ku soo dhaweeyay la yiri juuqna uma dhina war la hadlaya war ma ogida iska aamus sidii ku duufaayo dadka adili kartaa duf ku baxmo dhagaatiya riixa wiilka Itoobiya ma saxa xukuumadda geeska Afrika abaarta ka baxe